waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada channelka Ustaad Saciid Training. Waxaynu guda geli doonaa xalqadii 26aad ee casharadeenna inoo soo socday. Waxaynu isku dayeynaa qaybaha Photoshopka inaynu ku joojino 30. Marka hadda waxaa inoo haray qaybtan markaynu ka baxno 3 qaybood oo kale. Intaa kadib waxyaalo kale iyo social media qaybihiisa kala gedisan baynu u gudbi doonaa. Qaybtan waxaan ku baranaynaa sida shaashada iniga muuqata sida loo diyaariyo. Waxaan aad u jeedaan waa cirkii iyo daruurtii ku haraysneed. Tani waa qorax, tan waa dayax, kan waa geed. Marka sida ay u diyaarsan tahay si la mid ah baynu doonaynaa inaynu u diyaarino. Marka waynu guda gelaynaa page cusub baynu soo furanaynaa. New baynu leenahay page. Kadib waxba ka bedeli mayna size-ka ku jira. Okay baan leenahay. Layer baan soo furanaynaa. Kadib circle-kaas aynu soo qaadanaynaa. Waa dhigaynaa. Halkaan markaan dhigno color-kaynu u baahannahay waa inoo dooran yahay. Kadib waxaan oranaynaa Alt Delete. Alt Delete markaan dhahno Control D baa ku xigta. Halkaan markay inoo marayso move baan tegaynaa. qaybta hoose ay maraynaa. Background-ka inaan bedelaan rabnaa oo cirki ka dhigno. Marka waxaan tegaynaa filter. Kadib render baan ka dooranaynaa. qaybaha aynu isticmaali doono dhan render bay ku jiraan. Marka waxaan rabnaa in magaranaysaa halkan waa u jeedaan clouds. Cloudsku marka waa cirka iyo daruuraha ku hareeraysan. Marka kanaynu dooranaynaa ay ku qoran tahay difference clouds. Okay baan leenahay. waa ka automatically waxay noo soo fulay cirkii. Marka shaqo badan inoogama baahna. waxaan ku soo laabanaynaa qoraxdii. halkan baynu dhiganaynaa. kadib inaan iftiinkii iyo falaarihii u samayno baan doonaynaa. isla meeshii baan ku laabanaynaa. filter baan tegaynaa, render baan ka tegaynaa. kadib qaybta hoose light effects baan imanaynaa. light effects markay noo soo baxdo waa taa inoo soo baxday. waa halka ama dayaxa ka diyaarin karid ama qoraxda ifkeeda ka samayn karid. marka dayaxoo kale marka hadda iftiinkaanu u baahannahay. halka lafteeda marka harkii ku jiraan oo dayax ka samayn karaa. laakiin hadda qoraxdii weeye waxaan diyaarinayno. inahaasaan u daynaynaa. Okay baan leenahay. waxaa inoo sii haray inaan falaarihii u samayno. falaarihii inaan u samayno inoo sii haray. kadib waxaan ku laabanaynaa filter baan ku laabanaynaa saan falaarihi ugu samaynaa. isla renderkii baan tegaynaa. length flare baan tegaynaa. length flare. kadib okay baan leenahay. waa ka halkaasaa falaaraha ka diyaarinaysaa. halkan marka macnihii falaaruhu noocay ku noqonayaan iyo iftiinka rabtid baa ka dooranaysaa. hadda waa bedeli kadhaa. halkan waa bedeli kadhaa. halkan waa bedeli. macnihii marka size-ka hadda wuxuu yahay size weyn. marka size-ka haddii la yareeyo saa kuma soo baxayaan. hadda bilimetal 100 mm baan ka dhigaynaa. 100 mm baan ka dhigaynaa. iftiinku saas kaloo noqonaya. marka annaga kuwa uma baahnin. kan u hooseeya move iyo prime baan qaadanaynaa oo ah falaarahaas. kadibna halkan waxaan ka dhigaynaa 230. kadib okay baan leenahay. qoraxdu way isbedelaysaa. falaare yeelanaysaa. waa ujeedaa xogaa iftiinku meeshu ka qabsaday baa khaldan laakiin waa toosin karnaa. marka waxbana toosin mayna sideeda ha naga ahaato. daqiiqadaha nagu dheeraanaya marka ku sii mashquuli mayno. layer kale aynu furanaynaa. waxaan doonaynaa geed inaan keeno. geedka si aan u keeno filter baan ku laabanaynaa. render baan tegaynaa. kadibna halkan waa ujeedaa trees baa ku qoran. macnii dhir baa ku jira. dhirtaasaan soo dooranaynaa.
haddaa u baahan tahay dhir cusub iyo meelo ka qurux badanna waa soo gelin kartaa oo meelo laga soo gelaya jira halkaan oo kale blue disk presentiga aad tegaysaa waa halkaas ka soo gelinaysaa laakiin hadda qayb macnihii ku jira oo Photoshop leeyahay baa jira oo ujeeda waxaas oo dhan dhir noocyada kala gudbidsan weeye innaga kan inoo dooran oo meesha inoo saaran u baahana laakiin aad ka doontid baa ka dooran kartaa oo kay baa leedahay geedkii baa halka ku soo fuulaya qaab automatic geedkii waa kan waa haysana falaartan qabanayna hoos baan u dhigaynaa kadibna xagga aan joogsanayna waa u jeedaa hadda kaliya waxa inaga dhiman bilmatal inaan dayax samayno kale marka dayax saan u samayno kan hoosaan dooranaynaa waxaan leenahay control J baan oranaa copy baan ka samaysanaa copy marka ka samaysano waa soo qaadanaynaa halkan baan ka heysanaynaa waa yaraysanaynaa control T baan leenahay waa yaraysanaynaa alt shift baan qabanaynaa ama alt shift aan qaban baa intee qabatid baa yarayn karaa waa yaraysanaynaa marka kan xogaa waxaan rabnaa inaan ka bedelno oo baalkii dayax u ekaysiino marka waxaan sameynaynaa control baan qabanaynaa halkaas baynu dul tagaynaa waa dooranaynaa macnaa colorka inaanu magaranaysaa iftiinka dhexda inaan ka biinaa rabnaa marka waxaan oranaa alt delete baan oranaynaa control D baan oranaynaa waxaynu ku laabanaynaa filter baynu ku laabanaynaa render baan kasii tegaynaa light kii baan dooranaynaa light baan dooranaynaa marka waxaan doonaynaa lightka inaan dayaxii muujino marka dayaxa maxaa lagu yaqaanay inuu ka iftiin gadisan yahay ma garanaysaa qoraxda kale marka saasaynu u daysanaynaa saasaynu u daysanaynaa xogaa shaqaa ku socota marka control T baan leenahay waxaan doonaynaa xogaa dayaxa inaanu kala wareejino oo dhinaca xogaa madowga hoos xijino kadibna halkaa aynu dhigno marka hadda saas buu ku diyaarsan yahay dayaxii qoraxdii iyo wixii kadib waa isku xidhaynaa alt control A baan leenahay kadibna kanaan la dooranaynaa kadib control E baan leenahay saas ayuu ku diyaarsan yahay sida loo save gareeyana waa taqaanaa file baad tegaysaa save baa ka tegaysaa backgroundka ku save garaynaysaa halkaas magaca ku qoraysaa desktopkii meesha rabtid baa geysanaysaa save baa leedahay saas ku save garaysmaya marka halahaasaan ku joojinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu